مسؤولينta wasaaradda haweenka iyo horumarinta arrimaha qoyska Puntland ayaa maanta deeq dhar ah gaarsiiyay xarunta agoomaha ay ku jiraan in ka badan 500 oo caruur ah. Deeqdaasi waxaa loogu talagalay caruurta inay soo xirtaan maalmaha farxadda ee Ciidul Adha maadaama ummadda muslimiinta ay maalmahaasi faraxsan yihiin. Wasiirka haweenka ku xigeenkeeda agaasimaha guud qurba joog iyo mas'uuliyiin kale oo ka socota wasaaradda haweenka ayaa maanta si toos ah u gaaray una gaarsiiyay deeq dhar ah ardayda dhigata xarunta agoomaha ee duleedka magaalada Garowe. wasiirka wasaaradda haweenka Puntland Marwa Xaliima Xasan Xaaji Cismaan ayaa sheegtay in deeqdan ay soo gaarsiin ardayda agoomaha ay tahay mid ay ugu talagaleen inay soo xidhaan maalmaha Ciidul Adha oo ay ummaddu wada faraxsan yihiin. salaan kadib aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan joogno oo agoonta iyo danyarta agoon kaliya maaha barnaamijkan muusan ahayn runtii wuxuu ahaa agoonta centerkan ku jirta iyo dadka danyarta iyo agoomo magaalada Garowe degan saaka aroortii ilaa shalay ilaa saaka barnaamijku wuu socday oo wuxuu ka socday Garowe ka socday oo ardad badan oo agoomo ah oo magaalada degan iyo danyar baan dharka ciid u qaybinay iyo agoonta halkan agoontan kaliya kuma ekayna agoonta magaalada degan barnaamijku waa ku jiray iyo dadka danyarta oo awoodi karin inay caruurtooda dhar ciid u iibiyaan. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay idankiis barnaamijkan inuu noo hirgalo oo mid bilow ah noo noqdo oo Puntland oo dhan ka hirgala iyo Soomaaliya oo dhan hadii ilaahay oo caruurta agoonta ama dadka danyarta ay la ciidaan dadka waaridkooda ay waxaystaan oo awoodi kara dharka ciidda inay la ciidaan baan rajaynaynaa. waxaan rajaynaynaa biidnillah ilaahay idankiis labada ciidood inaan account u furno ciidaha ah oo maxaan ku iraahdaa ii sheeg dadku runtii sadaqada diyaar bay leeyihiin waliba agoonta la siinayo danyarta la siinayo in meel walba wadankeena Soomaaliya oo dhan ay gaarto in caruuraha la ciidsiyo maalinta ciidda oo aysan tabinin kuwa waaridkoodu jooga u awoodi kara inaysan tabin oo ayagina ay ciidayaan baan ilaahay ka rajaynayaa. marka aad baa u mahadsantihiin ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa biidnillah maalinta ciidana hadday noo suurtowdo oo agoontuna dalbato oo in casumaan iyo agaasimahooda iyo madaxdooda macnaha maamulkooda waxaan rajaynaynaa hadday casumaan inaan ciidana la ciidno oo salaada ciid aan la tukano maalinta ciidda hilibka isla cunno insha Allah haddaad casutaan wiilal iyo gabdho idinka idin jirtaa marka insha Allah taasaan rajaynaynaa. aadna waa u mahadsantiin boqolkiiba boqol soo dhaweyntaadna soo dhaweyseen farxad baan idinkula ciidaynaa ilaahay idankiis insha Allah. alaabooyinka maqan dharka gabdhaha oo jalbaabada tolmaha yaalaan harqaanka xaawo ayaa ka mas'uul ah oo mas'uuliyadeedii la saaray xaawo cabdi oo afhayeenka madaxtooyada hooyo dumarka ah oo xagga noo joogta ayaa galabta dhameystiraysa hadii ilaahay idmo oo waan idin keenayaa gabdhaha hadii ilaahay idmo dharka maartay intiisa kale 215 waa ugu soo talagalnay waana idin wada leeyihiin insha Allah saasaan rajaynaynaa wabillahi tawfiiq. dhanka kale Cismaan Guureey oo gacanta ku haya xarunta agoomaha oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay mas'uuliyiinta wasaaradda haweenka inay soo gaarsiiyaan ardaydan agoomaha ah dhar iyo waliba qalabka kale oo maalmaha ciidda ay caruurtu gashtaan kuna ciyaaraan. waxaan u bogaadinayaa wasiiradda cusub Xaliimo Xasan oo markii ugu horeysay way xilka qabatay ka bilowday danyarta iyo dadka ugu jicsan oo misna maanta xarunta agoonta Garowe ugu deeqaysa inay ciidiso dharka ku ciidi lahaayeen iyo dhaqaale kale oo ciid mubaaraga insha sidaan oo kale mas'uuliyiinta wasaaradda haweenka iyo horumarinta arrimaha qoyska Puntland waxay deeqtan oo kale gaarsiiyay dadka danyarta ee ku dhaqan gudaha magaalada Garowe kuwaas oo aan awoodin in ay hanti ay ku soo iibsadaan qalabka ciidda ay helaan.